decided to take part in building the road to Salahle and contributing towards phase 2 is because we've heard numerous. I would like to thank Human Concern International for the partnership between Human Concern International Canada and the Committee for the Construction of Hargeisa Ina Guha project for the بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو نكسن داوديال وحكوسو دوتان برنامج كاركاس ونزين كديارين حفلة كلا دوان أولو كلا قبتي هوين كبيلها محمد داود أول عقارسة $10,000 كوريجيسي قدز اسمها وتدعاد يولي بهايد عالمية أولوغو مقعابو Human Concern International oo ka dhisan dalka Canada ayaa iyaduna lacag gaaraysa $100,000 ku wareejisay guddiga dhismaha wadada caada hadaba xafladan kala duwan oo ka dhacay deegaanka Hunduley ayaan daawadayaal waxaanu barnaamijkan ku soo gudbinaynaa habkii hanaankii ay xafladahaasi u dhaceen daawasho wacan oo wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta oo taariikhdu tahay 5 bishii 8 waxaanu joognaa mashruuci wadada cad ee Hargeysa Salahle Ina Guha oo maanta aynu qabanano xaflad aynu lacag kala wareegayno haweenka ka soo jeeda deegaankan gaar ahaan haweenka ardayga Maxamed Daawud oo insha Allah taala aynu guddoonsiin doono lacag ay ugu tala galeen mashruuca wadada cad waxa kale insha Allah taala iyana inoo raacaysa hay'adda Human Concern International Canada oo iyagana insha Allah taala wada shaqayn iyo maaragtay mashruucan inuu ka wada qayb qaadano insha Allah maanta aynu wada bilaabayno insha Allah taala hawsheenu waxay noqon doontaa sida ugu horeyn waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Maxamed Cali Geedi Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم martida maanta halkan timi ay isugu jirta haweenka ardaaga Maxamed Daawud waftiga iyo guddida ka socota Human Concern International guddida ka socota gadar imaaraadka ee ka soo qayb gashay xafladan iyo dhamaanba martida kale ee joogta waxaanu leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta ka bacdi xafladeena maanta ugu horeysa waxa weeye dumarka ama haweenka ka soo jeeda ardaaga Maxamed Daawud ayaa maanta xafladan aanu qabanay oo insha Allah guddoonsiinaya mashruucan Hargeysa Ina Guha lacag ayay insha Allah guddoonsiinayaan ugu deeqeen xafladda ugu horeysa taa weeye waxaanu kala ku xigsiin doonaa insha Allah hay'adda la yiraahdo Human Concern International oo Canada joogta oo aanu la bilownay iskaashi la bilownay ayaan iyaga ku dhawada maanta ku soo dhaweyn doonaa halkan marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweyno waan ku soo dhaweyno haweenka beesha ardaaga Maxamed Daawud ayaan ku soo dhaweynaynaa waan ugu mahadnaqaynaa isxilqaadeen aad iyo aad bay u mahadsanyiin waan ugu ducaynaynaa waana sugaynay insha Allah aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa inaa maanta noo timaadaan halkaynu taagana ma garanaysaan fikti baa ku soo beegteen fikti baa ku soo beegteen baashi maaragta halka ka muuqato tale suldaanmadayada suldaan Maxamed Cabdilqaadir Cabdilaahi ayaan ka salaamayaa waxaan salaamayaa culimada waxaan salaamayaa inta shirka soo ajiibtay waxaan salaamayaa guurtidayada dumarka salaamad ayaan idin wada leeyahay salaanta ka bacdigeed
waxaanu sidnaa lacagtii wadada oo 10 kun ah haddaanu nahay ardaaga maxamed daawud dibidhac baa maanta dhacay waxaan sayidii sheegaya maanta kadib inaanu dibidhac dhici doonin haddii ilaahay yiraaho inaan u horeyna mooyee inaan u dambaynahayn sidaasi ayaa nalagu ogaanaya haddii ilaahay ka dhigo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa mudanayaal iyo marwooyinba inta halkan isugu timi maanta ee abaabushay wadada aynu maanta ku taaganahay wadadaas oo maanta wadada salaxlay oo noqotay furihii Soomaaliland wadooyinka insha Allah bidmillaahi kariim ka ugu horeeyana way noqonaysaa la maraa lagu intifaaco annagu hadaan beesha maxamed daawud nahay in yaro liidi baan ugu dhacdo dab u dhaca maantana waanu ka bogsanay barina na eega insha Allah bidmillaahi kariim tartanka ka ugu baanu ka galaynaa tuu damba gali mayno waxaan salaamayaa dhammaan madaxdayada oo dhan waxaan salaamayaa sulaadiinta waxaan salaamayaa culmowdiinka waxaan salaamayaa aqoon-yahanada fikiray inaynu wadada qaban karno inakoon dawlad iyo hay'ad iyo cid kala toona aanay gacanta markii hore inoo fidin imaka si aynu doonayno inaynu caawimo badan ka helo dawladda iyo wixii badan ee islaamiinaba insha Allah bidmillaahi kariim waxaan ilaahay ka baryayaa inay noqoto tii ugu horeysay la maro iyadoo furihii wadooyinka Soomaaliland ay noqoto ilaa ceeri gaabo ilaa allay baday inta u dhaxaysa wadadii laga bilaabay ay tahay wadada salaxlay insha Allah bidmillaahi kariim waynu ku guuleysanaynaa niyad iyo kalgacal baynu ku dhamaynaynaa insha Allah bidmillaahi kariim wixii kale aynu qabsanaynaa toos baynu qabsanaynaa cabsi dambe aynu kuma jirto way inaga saartay cabsidii waxayna siisay kaliyo iyo dhiirigelin xooga insha Allah bidmillaahi kariim sida ayaa si wanaagsan ayaan daawud oo aan halkan ku guddoonsiinayno shahaado sharaf ay ku mutaysteen hawsha ay soo fuliyeen dadaal dheeraadana waa loo baahan yahay inay waliba sii dadaashaan sheekh maxamed ba waxaan leeyahay qaadka ka daa habaarka ilaa ardayga guyoobi isagaa keena wadanka inooga dhammaystiro hawsheeda si aynu tu kale بلابن إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن كل إلهي بأنه مهديننا سبحانه وتعالى أولا إلهي سوكا كان كلا كان خيرية صدقة الجارية قفك قشة ضوح إلهي الرسول في سباقات بي وشيغان waxaan u baahannahay inaynu isku sii dhiiri gelino mooyee waa inaynu aad isugu sii tirtirsanaa oo nidhaahnaa si aynu qaar kalena u bilaabno tan hore ugu dhammaynaa waxaana aad u mahadsan oo mahad gaar u celinayaa dumarka dhaxdin iyo dhalashaba ka soo jeeda beeshan maxamed daawud ee iska xilqaamay ee habeen iyo maalintoona aan ka seexan ee u ordaayay siday u soo dhammaystiri lahaayeen arrinka taasoo ay in badan tiifiyada ay ka dhageysteen iyadoo aad loo dhaliilayo farta lagu godayo oo la leeyahay dumarkii maxamed daawud way ka hadheen hawshii wadada maanta haday dhiidhiyeen oo keeneen oo ballan qaadeen kuwa dambana in xagga hore ka galayaan ilaahay mahadi weeye subxaanahu wa ta'ala aad baan ugu mahadinayaa inaanu ku soo dhaweyno gudoomiyaha gudida gadar jaaliyada ardaagan beesha Cusmaan ku soo dhaweynayna oo runtii horena shaqo aad u fiican uga qabtay wadada oo lacag badan u soo ururiyay imikana ku dhex jira inay lacag fiican insha Allah wadada u soo ururiyaan Cusmaan waa nin aftahana weeye dhawaana insha Allah waxaanu booqan doonaa gadar oo aanu lacagta ka dooni doonaa maanta oo noo yimid waxay noo tahay fursad fiican annagana inuu nala hadlo qoladiina la sii hadlo wadadiina halkay taaganta fikti bay taaganta u arka isma walaal ku soo dhow barakallahu fiik bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka halkan isugu yimid rag iyo dumar baa mudana iyo marwooyin salaanta islaamka ayaan ku salaamaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khaasatan dumarka beesha maxamed daawud aad baan u salaamaya
waxaan ku salaamayaa lacagta ay keeneen iyaga iyo raggay u dhaxeen dumarkoo dhaxdin iyo dhalasho baanu salaamayno ragga ay u dhaxeen ay ka soo qaadeen ka mid ahay aniguba iyaga gaar ahaan baan u salaamayaa anigoo ka wakiila dabad joogga carabta ama khaasatan gadar qurba joogna lama yidhaahdo qurba joog waxaanu ahayn intaan Yurub iyo Mareykan iyo Australia noo iman intee halkaan naga geelno ma isla noo qaadeen oo waa nala waay meel aanu maraynaba laakiin dabad jooggaanu nahay saasay ku harimayno waxaanu nahay kuwii dalka dhisay kuwii faqashta ka saaray baanu nahay maantana wixii dhibay jirta waanu ka saaraynaa dalka khaasatan beeshan magaceeda aan ku hadlaayo anigoo la hadlaya reer gadar nin laba geel ciida gal leeyahay ogaadeen qaaday baa la yiri waa laga daba tagay geeli baa la arkay faras baa lagu taagnaa nin fulaa yiri talow ya uga degi nin ragaa yiri nimay dani badabay uga degi waxaan leeyahay reer gadar iyo dadka carabta joogaba dambay nagu haysata wadada inaynu gaarsiino ina guuxa inagoo dadka kale ee wadooyinka sameynaya laba aanay helin baynu helay nasiib aynu helay Umar Aydiid iyo wadadoon surveyor lahayn oo hore inoogu samaysnayd decided to take part in building the road to Salahle and contributing towards phase 2 is because we've heard numerous Mohamed Abdi Osman وانا East African Liaison Officer HI Human Concern International HI يعني East African Liaison Officer waaniga iyo Jacfar oo isaguna GTA manager runtii deegaanka waanu ka shaqeynaa inkastoo inta badan aanu ka shaqeyn wadooyinka ama sida hay'adaha kale ay sameeyaan laakiin runtii waxaan go'aansanay markaan aragnay dhibaatooyin fara badan oo ka taagan dhulka miyiga ee aanu ka shaqeyno inaanu mandate-keega ku soo darnay inaanu ka caawino xagga wadooyinka si ay access ugu helaan marka noqoto caafimaadka marka noqoto waxbarashada marka noqoto meelo kala duwan ay noqoto marka hadda aan ku soo darnay mandate-keega inaanu ka shaqeyno iyadana wadooyinka oo insha Allah wadadana idin la shaqeyn doono Human Concern International waxa la aasaasay 1980kii sida Jacfar sheegay waxa ka shaqeysaa sustainable development projects oo ay wadooyinkan soo galayaan ay waxbarashadii ka mid tahay ceelashii ay ka mid yihiin wixii waxyaabaha nolosha taabanaya muddada dheer iyo waxyaabaha kale aan ka shaqeyno waxa kamid ah emergency-ga iyaduna kamid ah sida abaaraha iyo earthquakes-ka waxaanu ka shaqeynaa in ka badan almost 40 wadan oo dunida oo dhan ah runtii waan ka shaqeynaa Somaliland iyo Soomaaliya anigaan ka shaqeynaa Geeska Afrika sidoo kale Kenya Ethiopia iyo Djibouti sidoo kale waan ka shaqeynaa marka runtii deegaanka waan ka shaqeynaa sida Bali Mataan oo kale iyo meelo kale oo hareeraheeda mandate-keygana hadda ayaan ku soo darsanay oo aanu ku darnay wadooyinka inaanu ka caawino cidii iyaguna waliba gaar ahaan waliba cidii iyagu wax qabsanaya markaan daraasaynay anagnaysa looga shaqeynayo wadadan inaanu contribution-kayga anagu ku darsano runtii hawl fiicanna wad haysaan waxaan markaa idin rajaynayaa inay si khayr idigu dhamaato Human Concern International intii awoodeeda possible okay wadadan way la shaqeyn doontaa insha Allah aad baan u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hay'adan Human Concern International ee reer Canada waynu mahadnaqaynaa waxayna la bilowday wax wada qabsi waxayna kala qabanayso wadadan qaybtii ugu horeysay oo $100,000 oo qolaba in bixinayso ayaynu bilownay marka ugu horeysa waa u mahadnaqaynaa waa soo dhaweynaynaa waa u ducaynaynaa and on behalf of the committee for the construction of the Hargeisa Ina Guuxa road project I would like to thank Human Concern International for the partnership between Human Concern International Canada and the Committee for the Construction of Hargeisa Ina Guuxa project for the purpose of the construction of Hargeisa Ina Guuxa project. We want to thank them and we hope this is going to be a very beneficial partnership. Thank you very much. waynu soo gabagabaysanayeen muhiimadda aynu lahayn xafladeennii laba shay baan runtii ku darayaa idinka raaliya Rashiid Maxamed Jaambir wuxuu runtii noo keenay inuu soo guddoonsiiyey qalab koodhara oo loogu talagalay inamada wadada jooga oo ay soo direen Saki Cabdi Dool iyo inama Ingiriiska jooga London waanu idga guddoonay shaqaalina waanu gaarsiinay aad iyo aadna waan idigu mahadnaqaynaa waxa kale runtii aanu iyagana halkan uga mahadnaqaynaa
ururka hayaan Canada gaar ahaan magaalada Alberta oo hore noo guddoonsiiyay $16,000 oo laga yaabo in meediyaha aan maalintii aan meediyu sii dayn laakiin la duubay iyana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa kale oo u mahadnaqaynaa Xasan Caydiid oo ka yimid Switzerland oo isaguna guddoonsiiyay $150 oo ka soo ururiyay jaaliyada halka degan isagana waxaanu leenahay waanu ka guddoonnay intaana idiga hadhmayna jaaliyada iyo xasanba waxaanu leenahay waxa la diga sugayaa lacag badan oo kale insha Allah taala way soo diri doonaan inta kale xasanna uu guddoonsiiyay aad iyo aad baa mahadsantiin dhamaantiin salaamu alaykum intaasna daawadayaal waxaa ku dhan barnaamijkii gaarkii aan idinka diyaarinay xafladii maanta ka qabsoontay deegaanka Hundulle inta barnaamijyada mid lamid u kulmi doono dhankayga waxaan ku dhaafay anigu Maxamed Cabdullaahi Warsame assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh